wali waxaan bartan ugu jirnaa booqashadii aan ku sameynay qaar ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo toddobaadkan ku tagnay suuqa Xamarweyne ee gobolka Banaadir kaasoo aan doonaynaa inaan u kuurgalno sida ay bulshada Soomaaliyeed u soo dhaweynayaan maalinta Ciidda oo maalmo qura ay naga harsan yihiin waxaan sidoo kale halkaas aan gaaray oo halkaas kula kulmay carwo lagu magacaabo Carwa Faisal Sports oo kamid ah carwooyinka ku yaala suuqa Xamarweyne kuwaas oo ka adeeganayaan bulshada Soomaaliyeed ayna doonayaan in ay farxadooda ama ilmahooda ay kula iidaan waxa doonayaan waras la yeesho mid kamid ah mulkiilayaasha meesha Carwa Faisal Sports oo lagu magacaabo Liibaan Xaash Siyaad Liibaan bal ku soo dhaweey cadda maanta adoo magacaada dareenkaaga ku bilaabay bal waqtiina wala ma sha Allah waan ku dhawahay halkan waa Carwa Sports marka Xamarweyne ku taalo waad aragtaa sida looga shaqeysanayo ma sha Allah waxa ay muuqataa dabcan waxa lagu jira maalmihii ugu dambeysay Ramadaan waxa la gudagadi rabaa maalintii Ciidda oo maalmo qura ay naga harsan yihiin dabcan Carwa Faisal Sports waxay kamid tahay carwooyinka ku yaala suuqa Xamarweyne kuwaas oo bulshada Soomaaliyeed u soo dukaamaysan tagaan dabcan waxa ay muuqdaa bal intaan u gudagelin waxyaalaha ay muuqdahay qabanayaan bal dareenkaada Ciidan idii hore waxay uga duwan tahay iyo sida loo iido iyo qiimo dhimista bal nooga war wallahi horta idii hore iidan kama duwana waa idii hore inkastoo dharkii wixii mariyay wixii wada qaali yihiin laakiin waad u jeedaa adigu laftirkaaga suuq waad aragtaa maanta dhan baad ila taagneed ee kulay waad arkii wartaa Faisal Ciidan idii hore waa ka duwan tahay dabcan xilli magaalada Muqdisho ay soo dhalaalayso ay ku soo aaday bal ka waran bulshada in ka adeegata sida ugu diyaar garowday maanta Ciidan wallahi ma sha Allah si weyn bay ugu diyaar garoobeen waad aragtaa maanta Jaanis ballama hayo waa kana wiilkan u tagno LC waa kuwana no LC marka waad aragtaa meesha Jaanis iyo ciriiriga waad aragtaa waxaan ku ri ma sha Allah idii horena si fiican bay Ciidan ugu wanaagsantii waxa ay muuqdaa in badanaaba gadi maryaha rag ay ku labistaan sida surweelada sportska maaliyan dharka sportska surweelada shaatiyaasha bal ka waran ayaka haweenka dharka haweenka goobta igama muuqdaan dharka haweenka waa kana gadaashaada fiir maama carab maama liiraha meesha ku haysa anaga waa isla meeshoon anaga sportska oo dhan dhameystiran baan haynaa sida waxaan haynaa tuutooyinka kale saraawiisha raabaska oo kale kabaha sportska oo kale koobabka saacadaha suudadka wax aanan haynin meeshan malaha marka waa kaasaha waxa ugu badan oo bulshada ku iidahayaan oo Ciidan badanaaba waxa loo asteeyay maalinta Ciidda caruurta maalinta dharka caruurta iyada bal hadii aan Liibaan oo anagu warintay maanta kale Ciidan caruurta ay u baan dharka bal caruurta ka waran sida ugu diyaar garoodeen maadaama Muqdisho ay kamid tahay goobaha ugu badan oo caruurta ay ku sugantaa khiyarma xashiyarka no arab jambion arwaya jambion masa jambion sir ya sir masuri هو يريس مقدس هاي waa u sheegay nooc asaawacay hooyo Liibaan waxa sidoo ugu warbixisa waxyaalaha ugu badan oo dadku maryaha ugu badan dadku ay ku iidayaan oo maalmahan Ciidda inta yaani soo dhowdahay lagu guday jiray toddobaadka ugu dambeeyay laga gadanaya bal hal iyo laba nooga sheeg walaal waxa ugu badan waxa weeyaan saraawiisha jeenisida sida maxaan ku raashaa shaatiyaasha leeynaha oo kale kabaha rabaaska oo kale oo jeeda maxaan ku rahdaayay fanaanadaha fashionka inta waa lagu iibsan laakiin dhalinyaradu waxay badan tahay dharkan sportska dharkan iyo alaabtan ay gadaysiin ininka jimlahaan bay ku timaaday oo isheeg waxa tiin ganacsato oo ka ganacsato Dubai ama waxa aga soo gadateen suuqa Bakaara ka soo qaateen Dubai iyo suuqa Bakaara inta ma ka soo iibsanaa laakiin anaga Dubai uga badan tahay $3 $5 laga rabaa $3 bal waxaan u warantahay Liibaan dhinaca qiimo dhimista bulshada u sameynaysa maadaama dadku waxa la sheegayaa in ama jirta Muqdisho in ay dadku ay saxaabahaysan dad barakacayaal ay iskaga jira dad dan yar iskaga jira aqoon ayaa ku jirta dadkaas sida oo la macaamilteen
horta wallaahi meeshaan carways faysal oo kale dadka qiimo dhimis aad u ballaaran baa loo sameeyaa shayga hadduu $9 kaa gadan yahay $8 bar xataa anaga waan siin karnaa waayo qofka ha soo dhawaysanaya oo keliya ay naga tahay marka aad iyo aad baan dadku soo dhaweynaa inta badan waa aragtaa macaamiisha nagu xidhan sida dadka ay u baxayaan oo u soo gelayaan matalan waad aragtaa ab $5 ka fiiri $5 ka fiiri ku soo dhaweeda cadda maanta adoo waxa ii muuqata inaad tiim dhan oo tihiin wada socdo aad tihiin dabcan waxaan u malinayaa inaad banooni dhashin saactii wanaagsan waa gartay carwadan aad taagantiin waxaa gelinaysa hadda gacmaha ku haysiin qaar ka mid ah dharka sportiska oo banooniga lagu dheelo bal ma tinku koox dhisan miyaad tihiin oo si gaar caan u ah mase waxaa tin dhalinyarada xaafadda ayaa ku dheeshay waxaana koox dhisan oo si gaar caan ah oo dadka xaafadana yaqaanaan waa gartay meelaha kalena nagala yaqaan degmada ninka ka timaadeen oo ka soo socda suuqa aan uga timaadeen degmada Facaweyn ee Yaaqshid ma sha Allah Ramadaan kariim ayaan leeyahay tobankii dambe ee Ramadaan ayaa lagu jira ciid ayaa soo dhow waxa joogteen suuqa Xamarweyne carwo lagu magacaabo carwo Liibaan ay carwo Faysal fashion sports ayaa joogteen marka bal ka warrama dareenkiin maanta waxaan ku faraxsanaana wallahi inaa carwadan wax ka gadan aad iyo aad waayo wiilaa maadna carwo lamid ah oo dhar yaalo insha Allah ninka hadda ma tiim ahaan baartan dharka inaa u gadateen masaa waxa rabteen qof kasta shakhsiyan inuu u gado maya tiim ahaan inaa gadanaa rabnaa waa gartay maalinta waxa ina arkaa inaad iida aad dheeli rabtiin oo koox inii balansantaa saas miya ayo waxaan iida waxa badda koox ugu bixino insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan guul ka gaarno hadda maanta bal iidina hore maxay kaga duwantaa iidan wala iidii hore aad iyo aad ay u duwantay iidii hore waayo iidii hore jaahilnimo ayaa jirtay taas lama yaqaan waxa dad taas mu facweyn laakiin iidan si fiican sanadkan isboortiga ay la qiimeeyaa haddana anagana waxaan dhalinyaro isboortiga qiimeeyo waxaan u maadnaqaa kii xiriirka FA-ga Soomaaliya oo kii xurtaan aad nasiisay inaa oo kacan oo banooni isboortiga sare u qaad inaa oo gaarsiisay wali waxaan bartan waraysigan la yeelinayo tiimka sportiska oo ka libsanaya carwo fashion sports oo ku tala suuqa Xamarweyne bal magacaada ku bilaabahay kulmeen Nuur Xasan waxaana kabta kooxda xornimo waxa joognaa suuq oo Xamarweyne waxa gadeena fanaan sports maalka subax iid waxaan oo balansan kooxda badda noo balansan sidaas oo diyaar garoowayna maalinta iidina si aad oo sugilaana waa faraxsanaa bal ka waran kulmi waxa tiim ahaan ayaa u labisanaysiin tobankii dambe Ramadaan ayaa lagu jiraa iid ayaa soo dhow waxa ay sheegtay iid in dhalinyaro ay badda ugu baxaysiin suuqa maalintaas lacag hata ay bixinaysiin bal ka waran dareen ahaan maxaa ka qabtaa maalintaas in kooxdaas u baxaysiin inaad guul ka gaartay wallahi guusha gaareen maalkaas waxaan uga faraxsan maalka iid oo iideen maano 30 biriya soonen aan koo tabartaadana muslimiin maalkaas maalin oo iidan oo farax wax waliba ka waran iidii hore maxay uga duwan tahay kulmiyo maandaabi in badan waa soo iiday Muqdisho ama gobol inta waa ku soo iiday dabcan haddana Muqdisho ku sugan tahay tobankii Ramadaan dambe ay iid ayaa soo dhow bal iidii hore maxay uga duwan hore waxa loo dhaweynaadaa wanaagsanaa iidii hore waa yareen laakiin hadda aqlan ugu soo kordhay sidaas iidii kale si fiican inuu gudubanta iidan aad iyo bash barwaaqo weesanaa weli waxaan badan wajnaa booqashada aan ugu talagalnay bisha aan araada soo dhaweynta ciidda fidriga oo ku baan maalmo qura ay naga harsan yihiin inta suuqa Xamarweyne ku dhaxay jiray booqashadayda waxaan la kulmay Farxaan Maxamed oo kamida ganacsatada kabaha ku gada suuqa Xamarweyne waxa ku jira xilli buuqa oo aad u bulshada aad u tiraban ay geesiisa dhooban yihiin bal Farxaan ku soo dhaweeyay cadda maanta bal dareenka noogu war waa maasantahay baashi dareenkayga hadan ka warrama suuq maanta aad buu kala socdaa waa runaantii waxaa laga dareemayaa cirri aan maalmihii hore laga dareemayn sababtoo waxaa lagu jiraa tobankii dambe oo Ramadaanka khaasatan kabaha waxaa loo diyaar garoobayaa si aan caadi ahayn oo dhalinyarada iyo gabdhaha iyo sheegay ciyaalka dumarka aad bay u iibsanayaan waa dareemi kartaa runaantii ishaad way qabanaysaa wax dumar ciyaalka gacanta laga wado oo ilaahay waxay qabanayaan haween caruurta gacmaha ku dhagan qaybaha kala duwan bulshada sida dhalinyarada oo doonaya inay iidan ay si farxadeed ku iidaan bal iidan sida adiga ugu diyaar garooday ka farxaan ahaan bal ka war aad iyo aad iidan waxa lagu diyaar garoobay si ma sha Allah sababtoo ciyaalka iidan waa iidii waxa lagu tilmaamay iidii ciyaalka inay tahay oo ciyaalka dumarka iyo gabdhaha yararka iyo wiilasha wax dhan waxa loo diyaar garoobayaa si aan caadi ahayn oo waxa dareemi kartaa inay tahay iidii ciyaalka oo
kabaha si aan caadin hadda loo iibsanaya maalmaha waxa lagu jira 10 dambe dadku waxay isleeyihiin kabaha yaan ka dhamaysan suuqana waa jaam meel cagta dhagaxii kor loo tuuro dhulka dhicmayso runtii aad dareemi karto farxaan iidan idii hor bal maxay uga duwan tahay dabcan waxaan is leeyahay iidan idii hor waa ka duwan tahay ana isri baa meesha jaam way dadku aad ay u tiraban yihiin waxa arkaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo xaafadaha kala gedisan gobolka Banaadir isaga imaanaya bal iidan idii hore maxaa farq u dhaxay wallahi farqi weyn u dhaxay iidii hore waxay bilaabatay waxaan dhigi karnaa markii ay 25 oo soonka maray haddana 15 oo soonka maray xogaa iidii bilaabatay 10 dambana wada oo maanta ku taana 20 ay taana uu xoogaysay suuqa ma sha Allah rajo wanaagsan leenahay waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan lagu ciido doonaa la qadaro waxa ka warantaa qiimo dhimista bulshada maadaama xaalado kala duwan ay bulshada ku sugan tahay dad waxa jira aan awoodin kabaha qaaliga ama alaabta qaaliga ay gataan kuwa agoonaha jira طبعا qaybaha kala duwan ee bulshada waa isugu jiraan bal ka waran dadkaas aad ula macaamiltiin wallahi kubaha dadku dabaqada kala leeyihiin hadii dabaqada sare noqoto hadii dabaqada dhexe noqoto hadii dabaqada ugu hooseysan noqoto intaba waa siinaa dadkan qof walba taagtiisa asiga ayaa garanaya waana ka iibinaa intaba laakiin inuu waxa diyaar u tihiin qaybahaas kala duwan bulshada in la macaamiltiin oo qof walba tawartiisa aad ku taxagelisiin bulshada ayaan ku xiranahay bulshada intii ka kooban tahay aanu baahidana ku saleyna sababta dadka waxa geedayna waa bulshada u shaqeynaa mugta dabcan sida in muuqata kabaha gadaysa waxa isugu jiraan noocyo kala duwan kabihi ragga kuwa dumarka caruurta sidoo kale bal kuwa ugu badan iidan laga gadanayo maxaa ka mid ah waxa ugu badan sida hor ku sheegay iidan waa iid ciyaalka waxa lagu badan maalmahan oo isha 10ka labada maalmood ugu dambeeyay waxa la dhahaa dadka weyn adeegtay inta kale waa ciyaalka loo adeegaa ciyaalka iyo gabdhaha iyo wiilasha wax dhan loo adeegaa marka labada maalmood ugu dambeeyay dadka weyn leeyihiin hadda waxaan ku jirnaa xilligii ciyaalka yarkaan ku jirnaa hadda dabcan in waxa ka mid tihiin ganacsatada kabaha ku gada suuqa Xamarweyne dabcan qaybaha meeshan waxa ka muuqda carwooyinka kabaha lagu gado idinku ma dad isku xiran baatiin oo suuqa isla wada oo mas'ad qof walba si kasto asoo awood ku ganacsan wallahi de kabaha horta isku meel laga soo wada qaadan laakiin qof walba price iyo wuxuu ku leeshiyo qofka waxa baa laga gadaa qofka waxa ku leeshida ka qaaday wax kale kama qaadi kartid price kana isku meel macnaha laga soo wada qaadaa qof walba shaygaas qofka meesha uu joogaa madax banaan wuxuu rabo gado kara suuqana xukumo qofka shaqada goorma kala soo gasheen dabcan waxa ay muuqata in suuqu uu cariir u yahay goorma kala soo gasheen ilaa iyo xilliga ku jiraan shaqadan wallahi de subax hore waa soo galama dilaa iyo waxaan ku dhahaa todobada waa furan yahay suuqu ilaa iyo maqribkana waa ku dukanaa meeshan ku afurnaa ma sha Allah marka inaku dabcan suuqa kabaha lagu gado waxa kamid ah ganacsatada suuqa kabaha ku gada adigu ma jimlahan u keensataa oo Dubai ayaa ka dalabtaa mas'ad suuqa weyn oo Soomaaliya ugu weyn sida Bakaaro kale ayaa ka soo qaata anaga waxaan ahay tafaariqley waxaan waliba ay sheegaan raga oo waratada loo yaqaano waxaan ka soo qaadnaa Bakaaro joolada keena anagana xabad u siibinaa xashay u siibinaa